inayda waa ka xaaraan ninkeeda inay ku adeecdo wax dembi ah ama macsiya inay ku adeecdo xaaraan laanu nabiga waxa ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam inuu yiri la daa'ata li makhluuqin fi macsiyati al-khaliq ruux makhluuqa mahma kana makhluuqaas wuxuu doonaba ha noqdo laguma adeeci karo fi macsiyati al-khaliq ilaahi khaliqa caasi qof laga yeelayo lagu adeecayo ma jirto ilaahi an Aisha anna imra'atan haweentaas min al-ansar kamida ayaa zawajad ibnataha gabadheedii guurisay fatamacada waxaa daatay shacru ra'siha gabadha madaxa tintii madaxa ka daadatay tintii madaxoo dhan ayaa ka daadatay gabadhana waa la qabay oo gabar la qabay ahayd xanuunkaasaa ku dhacay fajaa'ad markaasay timid markaa haweenaydii ila nabiyi u timid sallallahu alayhi wasallam fadakarad dalika sha'nigaasay lahu nabiga u sheegtay sallallahu alayhi wasallam gabadha in tintii ay ka daadatay ay u sheegtay faqaalat waxay tiri haweenaydii inna zawjaha ninkeedii ayaa amaranii gabadha ninkeedii amaranii wuxuu amray ana sila inaan xiriiriyo fi shacriha gabadha tinteeda shay-an wax kale oo ay tin ka dhigato inaan la xiriiriyo ayaa ninku amray saasay leedahay waa islaantii weyneedu yani haweenayd gabadhan la qabo hooyadeeda saa dhahayso ninkeedii wuxuu amray in tinteedii aan xiriiriyo oo waxyaalo maaragtay tin macmala loo sameeyo tin macmalon jirin inaan gabadha u sameeyo saasaa ninku amray ee ka waran mas'aladaasi ma bannaan tahay rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam faqaala rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la ma bannaanu yiri innahu sha'niya qad lucina waxa lacnad lagu riday almuwassilaatu haweenka tintooda wax kale ku xiriiriya oo tinaysan lahayn iska dhigdhigayo iska keenaya waa la lacnaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka mas'aladaasi laguma adeecayo ninka maxal shaahidka sheekhu intaas ninkii muxuu jecel yahay yani timo macmala in gabadhiisa ay u qorxoonaato timo macmala loo sameeyo ninkii saasuu gabadhii amray masaladiina nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam mubaaraka calayhi rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innahu qad lucina almuwassilaat gabadha muwassilaadka oo tintoodii xiriiriya lacnada lagu rido yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam sawaa'un kana alwaslu bisha'rin aw ghayrihi masaladu xaaraan gabadhu waxa ay tinteeda ku weynaynayso oo tinteeda ay ku badinayso ha noqdo tin kale oo macmala waxyaalaha hadda waxaa jira adduunku aad isleedahay yani waaba tin ruma oo la sameeyaa jira waxyaalaha tin ruma aad isleedahay oo ay farsameeyaana jira taasi waa soo geli waa xaaraan waxaa kaloo la mid ah aw ghayrihi ama wax kale ha noqdaan oo tin aan ahayn waa la mid ah haweenaydii maalan waxaa ka mid ah inay maaragtay gelinayso maryo iyo intay tinta geliso ay iska dhigayso dadkii ay yani iham gelinayso waxaan meesha ka kuusanay inay tin yihiin inay meeshii gelinayso xadiiskan ay soo geli waa xaaraan lama ogola haweenaydii tintu ku yar tahay inay wax kale ama tin bini aadam ha noqdo ama wax kale oo la farsameeyo ha noqdaan ama maryo ay ku weynaynayso ha noqoto waxaasoo dhan lama ogola oo tinta lala xiriirinayo liannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay sinfaani min ahli nnaari lam arahuma laba qoloo ahlu naarka ka mid a aniga xilligaygan ma arkin uu yidhi laakiin aakhiru zamaankay iman doonaan waxaa ka mid ahaa nisaa'un caariyaatun kaasiyaatun ru'uusuhunna ka asnimati albukti uu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam waxaa iman doonaa haweeney madaxooda aad u malaynayso kuriskii geela waxbay ku cubeen yani tin ma ah waxbay ku cubeen dhar iyo waxbay ku buuxinayaan markaasaad u malaynaya kurus geel oo kale ay ka dhigayaan marka masalada noocaas oo kale ah shacarka kaliya ma aha waxa xaaraanta ah tin kaliyahoo macmaloo lagu samaynayo lagu buuxinayo ma aha dhar haddii lagu buuxiyo ayadana masaladu xaaraanay noqon lama ogola sidii ilaahay kuu abuuray ayaa kuu qurux badan quruxdu waxay ku jirtaa abuurista ilaahay jala jalaaluhu